munaasabad lagu weyneynayay dhalashada nabigeena suuban maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa haata ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaana munaasabada xuskani kasoo qayb galay iskuduwaha wasaaradda diinta ee awqaafta culimaadudiin madaxda dhaqanka iyo bulshada qaybaha kala duwan waxaana ay si weyn uga dhiidhiyeen hadalkii madaxweynaha Faransiiska ee ku aadanaa taageerida uu muujiyay sawirkii farshaxanka lagu sheegay nabigeena suuban maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa haata ugu horeyna waxa munaasabada furay iskuduwaha wasaaradda diinta ee awqaafta gobolka Awdal laqad kaana fi rasuulillahi uswatun hasana halkan waxaan ku nooleynaa rasuulka ku dayashadiisii ayaan ku nooleynaa wax kale meesha ka jiro rasuulku ina siiradiisa akhrino ina salligiisa ku badsano ina wanaagiisa ka sheekayno maanta u saciyeeya maanta u dadaalaya xusn dhalashada rasuulka waxaan dilaahay hambaliyo hani allakum maanta waxa jira in min gaalihi waflagaadeeyay balse ilaahay jundigiisa uu soo diray ninkii macallinka ahaa oo ina yar oo mujaahida kaasa mujaahida oo kurga ka jaray inaguna inaan ka wada xumaano inaan cambaarayno in aan gaalka Faransiiska aan ilaahay haduleeyo maanta taasina waxaan leenahay Allah haduleeyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa hidaayada iyo hanuunka iyo iimaanka dhankii inoo keenay waa kii shariicadu hayna fartay inaan waladkeena iyo waalidkeena iyo nafteena inta baan ka jeclaana sidoo nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu xadiis ku yiri amida keenaysa in uu wax alla wixii nabi Muhammad xumaan lagu sheegay ka qiiroodo aw ka jin qoortoomo adduun iyo aakhiraba mid sareeyo ayuu ka dhigay nabi 571 markay ahayd marka deedna waqtiga ayuu dhashay rasuulka markii uu dhashay waa weyn baa bariyay oo waqti ay diinta ay gaabsi noqotay ay haydo sharciga nabi Ibraahim uu daraas uu baaliyoobay oo deedna meesha fatara ayaa dhacday waqti markii uu dhashay rasuulka alayhi afdalu salaatu wasalaam waxa gacanteeda uu ku soo dhacay gabadha shifa loo jiray oo saxaabiga Cabdiraxmaan bin Awf hooyadii ahaa jirta ayuu ku soo dhacay ayaa weyn bay lahayd gabadhaas alla inooga baahan yahay mar walba inaan nabigeena suubanaa alayhi salaatu wasalaam aan xusno waan niyada ku hayno oo aan xafladiisa qabanno xuskii nabiga haddii aan xusi weyno wuu baaba'aya caruurtiina marka dambe waxay warka saaba wax iska basiir sidaas baaba laga yaabo ilaahay numa keenay marka waxaan u baahannahay haddaan walaalihiin iyo culimaadudiinka naga dhaqankiiba inaan xoojino oo aan soo nooleyno xuskii nabiga alayhi salaatu wasalaam maalin dhaweyd madaxweynaha Faransiiska inuu diintii islaamka wax ka sheegay nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam waxba kama sheegi karo waa gaal wax la waxay ma jirto diin inuu farageliyo oo nabi Muhammad oo ilaahay doortay oo nuurkii ilaahay inuu wax ka sheego iyo diinta islaamka inay diinta islaamku tahay diinta kaliya ee xaqa tiibu maanta wax ka sheegay kana wax leenahay ilaahay calaamada ka muujiyo عبد الرزاق عمر معدوليو تلفزيون كعودك بريغ أفريقيا